المدينة كله شنا وحن وجيسيلنا إلى مصيبة وهالكاد وسيرة وكردين أنا إتهاي أخير عفا نبض مدقات الصومال اللي مثل غير سايت هاي مركا مسؤول الله وهذا اللي قبل أوان ونبض أنا كاين وقبل كاين هالكاسان ويجيسوا شيء لا يقول بينا وحولها هاي أريتها هاللوب وحلقة قبل أو هاللوب السعودية مدقات نبضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ahay muuse maxamed ducaale odayaasha beeshan ka mid ahay odaygu waa ka sheekeeyey waa maqlayseen waliidamyadiina waa maqlayseen fariintani toos waxay u socotaa madaxweynaha iyo ummadda reer Soomaaliland bay ku socotaa waxay ku socotaa baarlamaanka iyo guurtida iyo mas'uuliyiinta qaranka oo dhan bay ku socotaa waa maqlayseen waliidamadii waa maqlayseen cid wax ma weydiin xukunkiina waa u cadaaday halkaasaana laga saaro laga baxay siyaasigu ninka siyaasigii haddaanu hadalkiisa iyo ficilkiisa aanu ka fikirin cawaaqib xumada raadka iyo cawaaqib xumada ay keenayso sifihiisu waxa weeye in aragti gaaban xukun qarqoosh buu xukumay maxamedkaahi iyo xukuumaddiisu xukun qarqoosh bay xukumeen raggii waxlaayay waxay ku xukumeen ee beesha Sacad Yoonis waxay ku xukumeen diyo kii aanu keennay ee u xidhnaa ee beesha Axmed Faarax soo qabatay dhacdadii ka dhacday fadhigaab waa xidhan yahay waxayna mariyeen dariiqa garsoorkay mariyeen iyaguna cirif weyn bay ka xukumeen Sacad Yoonis raggii gacan ku dhiglayaasha waxay ku xukumeen in diyo ay bixiyaan xagee bay iska qabanaysaa markaasaan xukun qarqoosh ahayn ilaah baan idinku dhaariyey goorma garsoorkii guddidii fulin nimankii dawladdii xukuumaddii goormay noqotay garsoorkii goormay isu beddeshay shaqadii garsoorka goorma xukuumaddii ay qaadatay oo iyadu go'aansatay waxa kan madaxweyne arrinkaas arrin lagu qancayo maaha dariiqii nabaddu ku dhalaanaysana maaha raggii nabadda ka shaqeeyay baanu nahay waxay xukumeen shaariciyada cirif weyn in la isku toogtaa bay xukumeen wax kale oo ay xukumeen ma jirto waxaanu leenahay wasiirada aad noo soo dirtay ee xukun qarqooshka xukumay madaxweyne kamay fiirsan dhacdooyinka meesha ka dhacay cadaalad darray xukumeen xaq darray xukumeen baadil bay xukumeen cid u soo dirso nabadda hogaamisa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. halka waxaan ka gudbinaynaa fariintiisa aan u gudbinayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi fariintaas aan u gudbinayno aniga oo ku hadlaya caaqil afka xuqaasha Axmed Faarax waxaanu halkan aanu ka sheegaynaa in aanu uga dirayno fariin aanu ka dirayno saaka fariintaas aan u dirayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi golayaasha qaranka hay'adaha amniga cid kasta oo ay nabadgelyadu qusayso qabaa'ilada dega Soomaaliland iyo dhammaanba cid kasta oo islaam waxaanu halka saaka aanu ka ogeysiinaynaa wasiirada jooga ceelif weyn ee uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ee aad u soo dirtay madaxweyne nabadeynta waxay isu bedeleen colaadayn inay dadkii ay ku dhaxaburaan waxay isu bedeleen inay xaabo ku shidaan colaadii ka taagneed ceelif weyn iyo badrool ay ku sii shubaan waxay isu bedeleen inay ummadii madaxa isu geliyaan waxay isu bedeleen inay cadaaladii maxay ahayd ay madaxa ka jaraan waxay isu bedeleen inay ummadii kala saarne isku direen waxaanu madaxweyne ku ogeysiinaynaa waxaanu hay'adaha amniga idin ogeysiinaynaa waxaanu cid kasta oo ay khusayso ogeysiinaynaa meesha inaanay nabad ka xidhantay iyo nabad ka xidhmaysa iyo nabad ka xidhantay intay nibagaas joogaan aanay jirin waxa ay sameeyeen inay gacan ku dhiiglayaashii Sacad Yoonis
ay dhahaan maxay tahay waxaan ku dhex xukumaynaa hoolka weyn ee shirarka ceelaf weyn kadinkana ay ka saareen kuwayagiina ay dhaheen waxaanu marinaynaa hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo sidii loo dili lahaa waxay noo soo qaban waayeen maxay ahayd gacan ku dhiiglayaashii maxamed kaahin afkiisa wuxuu ka yidhi markii ay soo qaban kari waayeen sacad yoris gacan ku dhiiglayaashii waxaanu garannay in aanu maxay ahayd mag ku xukunno xaggay ka dhacdaa in mag lagu xukumo xaggay ka dhacdaa waxaanu madaxweyne rabnaa gacan ku dhiiglayaashii laayay hablaha iyagii lagu laayay ceelaf weyn waxaanu madaxweyne rabnaa hablaha iyagii lagu laayay fadhigaab waxaanu rabnaa in sharciga nala mariyo waxaanu rabnaa in nimankaa aad meesha ka kaxayso waxaanu rabnaa inaad cid kasta oo nabadda wax ka tarayso islaama aad u soo dirto ilaahumay ingiriis ahaato uma hoggaansanin xukunka mana qaadanayno umana imanayno umana fadhino inta sacad yorisna lagu xukumayo maxay tahay hoolka shirarka ceelaf weyn lagu xukumayo gacan ku dhiiglayaashii aanu ku lahayna dadka naga laayay kuwa yagina maxkamadaha la saarayo uma fadhino waxaanu kala madaxweyne kuu sheegaynaa wasiirada iyo maxay tahay la taliyaha gaarka ah ee jooga ceelaf weyn waxa ay nagu sameeyeen tacaddi aad u fara badan ma yeelayno halkaana nabadi kama dhalan waanu ku ogeysiinay cid kastoo islaamaanu u qaylinaynaa cid kastoo wax ka qaban kartaanu u qaylinaynaa cid kastoo ummadda kala saaraysaan u qaylinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaanu anigoo ku hadlaya cuqaasha Axmed Faarax Ciide beesha waxaan anagu halkan ka gabagabeynaynaa saxaafadan iyo warbixintan shirka jaraa'idaan u qaban go'aamada iyo nabadeynta laga waday hawsha halka laga waday ceelaf weyn ee wasiiradu waday in badan u fadhiyeen in aananu qaadan qodobka maanu qaadan caalamkan ogeysiinayna xukuumadda madaxweynahan ogeysiinayna caalamkan ogeysiinayna islaamkan ogeysiinayna ma qaadan sharci baana ahayn xaq baana ahayn waxaana u qaadan xaq baana ahay wixii xaqa waa qaadataa xaq maaha xukun sharciya ma qaadan qodobka labaad waxaanu warleh sacad yorisna waxaan leenahay sacad yoris hadday idinku filaatay annaga naguma fila haddaad dabkaa xal u aragteen xal maaha waxaanu leenahay haddaa idinku iska soo qaban weydo xukuumadda iska soo qaban weydena annagaa idinka soo qabanayna marka horeba annagaa idinka soo qabanoo tilmaansanay beel maanu qabsan hawsheeda maanu qabsan qaranku maanu baahin haddaa idinku iska soo qabado xukuumadda iska soo qabado annaga idinka soo qabsanay qodobka kale waxaanu leenahay oo caalamka u sheegin xukuumadda waa aragtaa nimanka hogaaminayay go'aankooda waa aragtaa hadday sharci canqiso ilaa jaajmankooda waa ka akhrido waa la daawaday sharciga hadday canqiso iyo hadday canqiso ka islaamka canqiso hadday islaamka canqiso waana wada canqina islaamba ma canqin waa soo qaban kari waaye annana waanu iyagaanu xukunna haddaanu annagu hawsheeda waxaanu leenahay ma qaadan go'aankii reerka waa kaa waana ka nimi nabadina kama juusin waxaanu leenahay afduubkaa ma qaadan go'aana waa naga kaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هذا بدن أرن مايان. مشاهد كده عادي عرف فين بدو بدن أما وسير هذا يمادين أما بيروه كشغيري النبض. واحد لقيه النبض يتسلح ولا لقيه. قان كان سكن عايز ألك كان شرع دراته. يقول بين من نقول كي نبض وحكتر له ونقول كي أراد سي نحلها ونقول صبت هاي تدبل لي وحي انت تكي لقاها القرف لسوق قبطه لكيانو تدكي وحلقا لا يدورتان ودد الله مرنا يو هدي لو قصاص يو
hadday diya qaadanayaan hadday saamaxayaan halkaa lagu kaxayaabe nin dhowr iyo 30 qof ku dhawaad bay ahaa dadka wax laayay nin qura laga soo qabto oo reerkiisa soo qabto keena intii kale waa maqanta qof qura waliyeedam saamaxay ma jiro qof qura waliyeedam diya ka qaadanaya ma jiro go'aan iyo amar wasiirada iska leeyihiin baa la yidhi kuwa maqan ee gacan kudhigleesha ahayd waa amar diyaa laga qaadanaya kaa xidhanna waa la xukumo waxa weeye gacan kudhigle kaasna waa la qisaasaya arrintaas waxay noogu muuqatay mid aan xal nabadeed ku jirin xal colaadeed un filisay colaad un galka ka saaray waa ka baxa بسم الله الرحمن الرحيم أنا سلطان أحمد فاهية وكوها اللي أفكر مدح العقباتك أنت مغيين أنت شو تبع مركها وحنا كنا قاعدين هذا أحمد فرحنا هاي وروى أن لقاها هي نبض وحنوص ومر هدي بدن كلا غيب سلام بين نقول شيء حساس بين نقول شيء علاق بين نقول شيء آخر كبير برسول نبض تعالوا بي وحي أنا تعب كأوصل قال لي ما أنت واحد مدعي برك الوجود ولي شرعي قدرتك عملنا بدين يحل باللوديكا أما حق باللوديكا حقنا لو بدي حل لو بدي تاريخ لما أعرف قاعد كديقلي أنتوا واحدة فراي أي كو عداتو كي وينتي سدلي راعي ولا تمش لي وحولنا waxa ceefeen ka socdaa xukuumadda aad soo dirtay madaxweyne ay ka sameysay waa wixii la isku dilay fadhiga ka kacada maanta la joogaa madax meel ka sareyso la saxaa ma jiro waxa la fadhiga ka kac wax qabo cidii nabad ka dhalin lahayd meesha soo dir kuwii hore waxay ka dhaliyeen colaad colaad bay ka dhaliyeen intaas oo gacan ku dhiglaa joogtay waxaad moodaa in meel loo soo diray dulmiga cid gaar ah الماشي اللي نقول الميو ددنا اللي وفصحه أما حق بالمرية أما حل بالمرية حقنا الله مري حل الله مري ددنا وحل بالقد جيو كي قف كي يسوي دليل يسقي مربى ولا بحملك كوعد عليه قاعد نشيل شيء كتير هلا شوف تاني تاسلنا بدل الميس أنا محمد الله بعد يوم مرصد الحال كله واقعية عد ما شو صار عليك شو قال يكون لا مدحوي والسلام عليكم ورحمة الله